markii wiilkaaga ama gabadhaada ay ku yiraahdaan hooyo ama aabbo waxaan waa maxay, maxaad u samaysay, maxaa kugu kalifay, markii biri ku yiraahdaan ilmahaaga maxaad ugu jawaabi doontaa? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga waa xoogsaday halkan in kala hadlayo Wahidra Official. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago mowduuc ku saabsan dhibaatooyinka isticmaalka baraha bulshada iyo waxyaabaha laga dhaxlo. Isticmaalka baraha bulshada waxaa loo isticmaalaa siyaabooyin kala gedisan oo ay ka mid yihiin kow, qofka inuu wax faa'iideeyo, laba, qofna inuu wax faa'iideysto. waxaa kaloo jiro dad intaaba aan ahayn ee u soo galo keliya in ay dhaqaalo ka sameeyaan oon u aabayeelin waxa ay sameynayaan iyo waxa ay soo gudbinayaan intuba. sidoo kale waxaa jiro haddaan nahay Soomaali dhalinyartanada 98% waxa ay soo gudbiyaan wax aan u fiicnayn anshaxa, diinta, dhaqanka iyo qofnimada intuba. waxaad arkaysaa dhalinyar soo gudbinayo waxyaabihii loogu talagalay in guriga lagu sameeyo inay soo bandhigaan, sida laba qof ee lamaanaha isqabo Ilaahay subxaanahu wa tacaala isu baneeyay in ay intay camera soo hor fariistaan ay soo gudbiyaan wixii ay guriga ku sameyn jireen ee maaragtay khaaska Ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaar yeelay. qaybo kamid ah inay noo soo bandhigaan oo ma garanaysaa ay nala soo hor fariistaan wax kamid ah waxyaabihii loogu talagalay si gaar ah inay u sameeyaan. haddii ay soo dhamaystiri karaan oo wixii gaarka loogu talagalay ay soo dhamaystiri karaan oo social media uu ka aqbali lahaa, waxaan aaminsanahay inaysan kala reebeen ee dhammaan ay soo wada gudbin lahaayeen wixii ayaga ahaa ee fuxshiga ahaa. tala ahaan marka dadka ayaga ah waxaan siin lahaa labada qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala isu baneeyay ee lamaanaha ah ee Ilaahay uu sharfay ee karaameeyay ee sida gaarka ah inay waxooda u sameeyaan loogu talagalay in ay maaragtaa dhala wadaagin annaga oo ay ka dhaxli karaan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu caroodo, oo ay ka dhaxli karaan sharaftooda inay ku waayaan, oo ay ka dhaxli karaan in ayagii laftooda uu saameyn ku yeesho oo burbur iyo maaragtaa waxaan aad u wanaagsanayn uu kala dhex maro. sidaan isla ognahay dhalinyarta lamaanaha ah ee inta badan soo bandhigo noloshooda qaybo ka mid ah nala wadaaga ee kamerada soo hor fariista, mostly sidaan isla ognahayba waxay ku dambeeyaan burbur iyo waxaan wanaagsanayn, kala tag, weliba markay kala tagaan kala tagoodu uu sababayo in midba midka kale uu soo ataagareeyo oo uu soo gudbiyo waxyaaba aan wanaagsanayn iyo wixii dhex maray iyo wixii isla soo mareen inuu midba maaragtay meel inta la soo fariisto uu nala sheergareeyo. waxaan marka si gaar ah aan oola hadlayaa oon u jeedinayaa talahaan aan ugu jeedinayaa dadka lamaanaha ah ee waxyaabaha ayagaa sameynahayo ee labadii qof ee wax wanaagsan soo gudbinayo oo inta iska kaashado wax wanaagsan oo bulshada faa'iido u leh soo gudbinayo, wax dhibaato ma lahan, waana loo baahan yahay dad wada jiro oo wax wanaagsan dadka la wadaagayo. laakiin waxaan ka hadlayaa waxay yihiin dadka lamaanaha ah ee soo gudbinayo waxyaabaha aan wanaagsanayn ee sharafka iyo diinta iyo shakhsiyadda intaba maaragtay aan u wanaagsanayn oo dhaqankii maaragtay burinahayo inay soo gudbiyaan. waxaan dhihi lahaa walaalayaal ka waantooba wax ayaga wax wanaagsan maahan. sida qaalibka ahna dadka sidaas sameeyo waxay ku dambeeyaan foolxumo, kala tag iyo dagaal iyo cuqdad joogto ah iyo in midba midka kale uu maaragtay si gaar ah uu u soo aflagaadeeyo ama u soo weeraro oo sirtoodii gaarka ahayd ay marka dambe ku dambeyso mid bannaanka imaado. waxaan dhihi lahaa marka ha laga waantoobo dadka lamaanaha ah ee waxa soo bandhigahayo. walaalayaal ka waantooba, iska daaya, raadiya waxaas wax ka wanaagsan ee aad noo soo bandhigtaan waxay doonaanba ha noqdaane. waxaa ka mid ah siyaabaha khaldan ee aan u isticmaalna social mediaha in laba qof ay isku dhacaan, labadaas qof laba iyo dhidikoo doonaba ha ahaado, laba qof inay isku dhacaan oo asxaab ahaan jiray, labada qof markay isku dhacaan oo ay kala tagaan oo uu dagaal dhex maro, dagaalkoodii kuma ekaan doono wixii dhex maray sida gaarka ayaga u dhex maray kuma ekaanayo. waxay sameynahayaan in midba midka kale uu maaragtay shaashada usoo fariisto oo si gaar ah uu ataagareeyo qofkaas wixii asxaabnimadooda dhex maray inuu soo bandhigo, uu yiraahdo hebel hadda ka hor baan intaa u sameeyay, inta hadda ka hor baa waxaa u qabtay, hebel intaa waxaa ka hor buu iga codsaday, hebel waxaas iyo waxaasaan soo marnay, saasaan u sameeyay. weliba soo keenaya cadeymo. labada qof markay asxaab yihiin wax walba dhex mari karo, waxbay iska codsan karaan, waxbay iskaga baahan karaan, waxbay iska kaalmeyn karaan, waxbay ma garanaysaa isla wadaagi karaan. intaa ayada aba waxa weeyo
looma meel dayahayo labadan qof war awal asxaab baad ahaydeen wixii wanaag ahaa idin dhex maray waa wax gaar ah haddaad isku dhacdeen ama heshiyo oo isku soo laabta ama kala tago qof walba dantiisa duurka ah u galo dhihi maayaane waxay midka kale wuxuu ugu soo jawaabahayaa waxaasaan kuu qabtay iyo waxaasaan kuu sameeyey ilaa ay gaaraan marka u dambeyso in la isqabiil caayo oo kuwa kan kale uu qabiilkiisa ree hebel baasaan ah ree hebel baasaan ahaan jiray ree hebelkiinoo dhan baasaan ah gabdhihiina asaan ahaan jiray ree aabaha baasaan ahaan jiray anigu waan kaa aaba fiicnahay waan kaa qabiil fiicnahay waxaan ahay ree hebel oo ree hebel baan ahay waxaasaan inku samayn jirnay saasaan ahaan jirnay gabdhihiina waxaa lagu sameeyaa iyo waxaan wanaagsanayn oo sharaf dhac aha oo shakhsiyadan aan u rooneyn dhaqanka aan u rooneyn diintan aan u rooneyn qofka adigu maaragtay kaa soo horjeedo isku dhacsantihiinna waxa aad gudbinaysa aysan ahayn wax asaga u roon adigana waxaad gudbinaysaan ahayn wax adiga shakhsiyadaada ku roon taa ayadaana waxaan dhihi lahaa asxaabay inta badan iska ilaaliya waxa aad soo gudbinaysaan foosha xun ee aad nala wadaagaysaan oo ay arkahayaan dad adiga maaragtay meel sare aad u joogtay oo ehelkaaga ah ama ay arkahayaan waalidiintaadii oo kugu soo tiiriya tacabeelay oo doonahayay inaad noqoto qof meel ka soo baxo ama maaragtay ayagu ay ku faanaan oo yiraahdaan wiilka yagii baa sidaan ah laakiin intiiba intaad kasoo sokamarto wax aan kugu wanaagsanayn oo qabiil caay ah qof caay ah sharaf dhac ah maaragtay cirdigaaga iyo diintaadii iyo shakhsiyadaadiba hoos u dhigahayo inaad nala soo wadaagto waa waxaan wanaagsanayn fadlan waxaan idin dhihi lahaa waxyaabahaas aad bay u badan yihiin dhowrkan beri wiil iyo gabar is haysto laba wiilo is haysto laba gabdhood is haysto waxyaaba noocaas aad u fara badan aad bay waayahan u kacsan yihiin waxaas ayagaana wax aad u wanaagsan maahan ha laga waantoobaan dhihi lahaa qof kastana waxa weeye waxa uu soo gudbin karaa wax dadku ay ka faa'iidi karaan waxay doonaanba ha noqdoone fikrad buu soo gudbin karaa u gadmayso cilmi buu soo gudbin karaa u gadmahayo wuxuu soo gudbin karaa ganacsi uu ka sameynahayo maaragtay social mediaha oo uu maaragtay ka faa'iidi karo waxyaabo fara badan oo dhaqaalana ka sameyn karo laakiin inaad dhaqaalo aad u doorbido in aad maaragtay xumo aad soo gudbiso wax aad u wanaagsan maahan ha laga waantoobaan dhihi lahaa sidoo kale waxyaabaha aan u isticmaalno baraha bulshada waxaa ka mid ah been aad iyo aad u fara badan waxaa u badan dadka wararka soo gudbiyo waxbaa la soo gudbinahayaa aan waxba ka jirin fariin baa lagu soo dulqorahayaa laleeyahay deg deg waxaas iyo waxaasoo dhacay oo ma garanaysaa aan waxba ka jirin in naloo soo bandhigo sawiraan iyo wax aan maaragtay aad u foolxunna maaragtay meeshii looga soo dhigo thumbnail wixiina dadkii ay waxay moodahayeen wax ka duwan ay kala kulmahayaan markii meesha ay tagaan marka walaalayaal waxaan dhihi lahaa isticmaalka baraha bulshada si wanaagsan baa loo isticmaali karaa aan iska kaashanno inaan soo gudbinno wax wanaagsan ama nagala faa'iidi karo ama annaga laftanada aan soo doonano in maaragtay aan wax faa'iidno oon cilmi iyo caqli iyo fikrado aad u wanaagsan aan usoo doonano baraha bulshada laakiin inaan wax aad u foolxun aan soo gudbino wax aad u wanaagsan maahan shakhsiyad ahaanna maaragtay kuma wanaagsano bulsho ahaanna kuma wanaagsano fadlan aan isku dayno waxa aan soo gudbinayno intaana soo gudbin ka hor inaan waxaan ambaarno oon iraahno maxaa waxaan ka imaan karo waxaan mar haddii social mediaha galaan waxa weeye wax dib dambe u baxayo maahan maxaa lagaa dhaxli doonaa jiilka dambe ee kaa dambeeya maxay kaa dhaxli doonaan ilmaha adigoo aad dhashay ama aad dhali doonto maxay kaa dhaxli doonaan maxayse arki doonaan hooyada waxa dhaqan xumada social mediaha soo gelinayso ee ayadoo qaawan ee dhaqankeedii iyo diinteedii iyo shakhsiyadeeda ka tagtay soo gudbinayso waxaa aad ku foosho xun ilmahaaga beritoole markay garaadsadaan oy wax fahmaan maxay arki doonaan waa maxay waxyaabaha hooyooyinka waxaa sameynaya ilmahooda ay arki doonaan beritoole maxay ugu jawaabi doonaan markii wiilkaaga ama gabadhaada ay ku yiraahdaan hooyo ama aabbo waxaan waa maxay maxaad u samaysay maxaa kugu kalifay markii beri ku yiraahdaan ilmahaaga maxaad ugu jawaabi doontaa maxaad dhihi doontaa waxaasaan ka waday ma jirtaan u malaynayaa jawaab aad u heli doonto qof kastoo wixii kaa dhacay horey kaaga dhacay waa kaa dhaceen shaydaan baana kaa adeegtay sidii aad waxa ayaga ahaana ku tirtiri lahayd farankeeda gal sida hadda wixii ka dambeeya waxa aad soo gudbinayso waxa aad oga bedeli lahayd ood u wanaajin lahayd waxa aad soo gudbinaysana waa inaad maaragtaa ka baaraadegto wabilaahi towfiiq
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.